كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. xiriirka u dhaxeeya Hindiya iyo Pakistan ayaa galay marxalad kulul oo faraka hadal ah kadib markii xaaladdu ay dhaaftay hadallo iyo cambaarayn siyaasadeed oo warbaahinta uun ku koobnaan jiray xilliyadii hore iyadoo hadda u gudubtay iska horimaad ciidanka Hindiya ayaa weeraro gantaallo ah ku qaaday 3 magaalo oo dhaca dalka Pakistan Bahawalpur oo ku taalla gobolka Punjab Muzaffarabad iyo Kotli oo iyaguna ku yaala Kashmir qaybta ay maamusho Pakistan ayay ciidanka Hindiya fiidnimadii Talaadada 6 May ee aynu soo dhaafnay duqeymo ka geysteen jawaabta Pakistan maysan daahin balse saacadihii xigayba ciidankeeda cirka ayaa fuliyay howlgal kaasi oo lagu soo riday 5 diyaaradood oo nooca dagaalka ah oo ay leedahay Hindiya darbaxo filan waa ku noqotay Hindida iska horimaadkan ayaa ka dhigay adduunka oo dhan mid isweydiiya halka uu u jihaysan doono dagaalka labadan dal oo ah 2 dal oo ku gaashaaman hub nukliyeer kuwaasi oo xiriirkoodu uu murugsanaatan iyo dabayaaqada qarnigii hore haddaba ma laga yaabaa in dagaalkan isku bedelo dagaal nukliyeer jawaabta waxaynu ku ogaan doonaa muuqaalkeennan ha ilaawin inaad like inoo saartid lana wadaagtid asxaabtaada ku soo dhawaada daawadayaal ganacsigaaga ama xitaa aad ku suuq geysid shaqooyinkaaga haddii jawaabtaadu ay tahay haa Wab Digital waxaan kugu haynaa samaynta iyo naqshadeynta website tayo sare leh adigoo ku helaya muddo kooban iyo qiimo jaban sidoo kale haddii aad rabtid samaysashada sumad ama astaan ganacsi sida logo iyo wixii la mid ah dhammaan adeegyadan waxaad ka helaysaa shirkaddeena Wab Digital nagala soo xiriir hadda WhatsApp lambarka ka muuqda shaashadda sidoo kalena aad ka heli kartid commentiga ugu horeeya mahadsanidin 22 Abriil 2025 deegaankan oo la yiraahdo Bahalgam oo dhaca gobolka Kashmir qaybta uu dalka Hindiya gacanta ku hayo ayaa hal mar waxa ka dhacay duulaan galaaftay nolosha ku dhawaad 24 qof oo dalxiisayaal ah halka tiro intan ka badanna ay ku dhaawacmeen markiiba Hindiya ayaa ku andacotay in Pakistan ay ka dambeysay duulaankan waxayna ballan ku qaaday inay jawaab degdeg ah ka bixin doonto inkasta oo dawladda Pakistan ay si cad u beenisay eedeymaha Hindiya haddana ciidamada Hindiya waxay qaadeen tallaabooyin degdeg ah oo ay ka mid ahaayeen xiritaanka xuduudooda dhuleed iyo cireed ee ay la leeyihiin Pakistan waxayna joojiyeen fiisayaashii socdaalka taasoo sii xumaysay xiriirkii horeyba u kala fogaa ee labada dal ka dhaxeeyay waxaa xusid mudan in muranka ka taagan xuduudda Kashmir uu taagnaatan iyo sanadkii 1947 tan iyo weerarkii Bahalgam labada dal ayaa si dadban ugu dhawaaqay xaalad feejignaan sare ah iyagoo kordhiyay diyaargarowgooda ciidan iyo saanadooda dagaalba waxaana jiray hadal hayn iyo cambaarayn istaba joog ah oo socotay muddo 2 toddobaad ah ilaa ay ciidamada Hindiya habeen hore qaadeen duulaan gantaallo ah oo ay ku beegsadeen 3 magaalo oo dhaca Pakistan waxayna ku sababeeyeen in ay yihiin xarumo ay ku sugan yihiin kooxo argagixiso ah oo ku lug lahaa duulaankii Kashmir ka dhacay Hindiya waxay sheegtay inaysan doonayn dagaal isla markaana aysan beegsan dadka rayidka ah iyo xitaa xarumaha ciidanka laakiin dawladda Pakistan ayaa si buuxda u beenisay sheegashadan afayeenka ciidanka Pakistan General Ahmed Rashid ayaa sheegay in duulaanadan ay sababeen dhimashada 26 qof oo rayid ah iyo dhaawaca 46 kale kuwaasoo lagu dilay duulaano 2 qaybood ahaa oo lagu qaaday 6 goobood oo ku yaala gudaha Pakistan weeraradan waxay sidoo kale burburiyeen 2 masjid iyo dhismayaal rayid ah wasiirka difaaca Pakistan Khawaja Asif ayaa sheegay in dhiigga dadkan rayidka ah uusan noqon doonin mid u daatay micno darro Pakistanna ay u argudi doonto maysan qaadan muddo badan hanjabaadii Pakistan oo markiiba waxay qaaday weerar cir iyo dhul ah ciidanka cirka ee Pakistan ayaa beegsaday dhowr goobood oo ku yaala xadka labada dal gaar ahaan dhanka Hindiya ee Kashmir weerarkan ayaa sababay dhimashada 10 qof oo rayid ah iyo dhaawaca 35 kale
waxaana sidoo kale lagu soo riday 5 diyaaradood oo uu leeyahay ciidanka cirka ee Hindiya. Diyaaradahan ayaa kala ahaa 3 diyaaradaha loo yaqaan Rafale, 1 diyaarad oo Su-30 ah iyo 1 diyaarad oo iyaduna MiG-29 ah. wasiirka warfaafinta Pakistan ayaa sheegay in dalkiisu uu muddo dheer isku dayay inuu ka fogaado xaaladahan dagaal, iyagoo sheegay in ay muujiyeen dulqaad iyo isxakamayn dheer, balse Hindidu ay u muuqdeen inay si ulakac ah ugu tallaabsadeen duulaan dhulkeenna ah. sidaasi awgeedna diyaar ayaan u nahay inaan ka jawaabno oo aan wajahno gardarradan. haddii aan eegno waaqaca iyo meesha uu xaalku hadda kala marayo, ilaa hadda Pakistan ayaa u muuqata inay gaartay guul cad, waxayna dharbaaxo lama filaan ah u geysatay Hindiya. dharbaaxo kala dhantaashay xisaabtii Delhi. Hindiya waxay si kooban uga falcelisay dhacdada, iyadoo sheegtay in duqeyntii ay ku qaaday 3 magaalo ee Pakistan dhaca aysan uga gol lahayn dagaal, isla markaana aysan beegsan rayid ama xarumo ciidan. oo markii ugu horeysay muddo 10 sano ah oo ciidamada Pakistan ay hal mar soo ridaan 5 diyaaradood oo ah nooca dagaalka oo ay leedahay Hindiya, iyagoo adeegsaday gantaallo difaaca hawada ah oo ay ka soo rideen masaafo fog oo gudaha Pakistan ah. arrintan waxay si weyn u dhaawacday sumcadda ciidanka cirka ee Hindiya, waxayna hoos u dhigtay sheegashadii ay ku faani jirtay ee ahayd in ay leedahay awood ciidan oo ka saraysatan Pakistan, sida ay sheegeen dadka falanqeeya arrimaha military ee labada dhinac. guusha Pakistan waxay dhalisay in falanqeeyayaal badan ay baaraan awoodda gantaalada ee Islamabad, taasoo dhowaan dib u qalabayn xooggan lagu sameeyey. waxayna Pakistan heshay gantaal uu soo saaray Shiinuhu oo la yiraahdo BL-15. gantaalkan ayaa wax ka ugaarsan kara masaafo dhan 200 kiiloomitir, waana isla gantaalka lagu beegsaday 3 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ugu magaca dheer ee Rafale, Su-30 iyo MiG-29. waxyeelladu kuma ekaan diyaaradahan oo keliya, waxaa sidoo kale la burburiyey cutub ciidan oo Hindi ah, waxaana la qabtay qaar ka mid ah askartan. Hindiya oo aad moodid inay filanwaa ku noqotay jawaabtan ayaa gashay xaalad aamusnaan ah, waxayna u muuqataa mid jahwareer ku dhacay kadib guuldarrooyinka aan la filayn ee la gaarsiiyey, taasoo muujinaysa horumarka weyn ee ay Pakistan ka gaartay dhinaca difaaca hawada iyo tiknoolajiyadda, iyadoo garab ka helaysa Shiinaha. waxayna arrintani sidoo kale muujinaysaa in dagaalkan u dhaxeeya labadan quwadood uu noqday mid u dhaxeeya tiknoolajiyadda Shiinaha iyo tan galbeedka. ma laga yaabaa inuu dagaal nukliyeer dhaco? inkasta oo ay jiraan kala duwanaanshiyo ku aadan awoodda military ee labada dal, haddana horumarka Pakistan ay ku samaysay difaaciyadeeda iyo cududda nukliyeerka ee labada dhinac ay kala haystaan ayaa horseeday in miisaanka awooddu uu noqdo mid isku dheelitiran, taasoo si weyn u kordhinaysa halista ah in dagaalku uu galo waddo aan la xakamayn karin. labada dalba waxay ku jiraan tartan hub oo xooggan, gaar ahaan horumarinta hubka istiraatiijiga ah ee nukliyeerka, sida gantaalada baalistiga ee loo adeegsan karo in lagu qaado madaxyada nukliyeerka. dhinaca Hindiya waxay haysataa gantaalka la yiraahdo Agni ee isaga kala goosha qaaradaha, kaasi oo jari kara masaafo gaaraysa 5,000 oo kiiloomitir, halka Pakistanna ay haysato gantaalka loo yaqaan Shaheen oo isaguna gaari kara masaafo u dhaxaysa 2,500 ilaa 3,000 oo kiiloomitir. waxaa sidoo kale jira saadaal ah in labada dal ay gaari doonaan madaxyada nukliyeer ee uu midkiiba haysto 200 ilaa 250 madax sanadkan 2025. Pakistan si gaar ah ayaa loo sheegaa inay hadda leedahay ilaa 165 madax, iyadoo awood u leh inay soo saarto ilaa 30 madax oo cusub sanadkiiba. waxaa intaas dheer inay leedahay gantaallo ay ka mid yihiin Haft oo gaara 300 kiiloomitir iyo Hatf 4 oo isaguna gaara 750 kiiloomitir, kuwaasoo dhammaantood lagu xiri karo madaxyo nukliyeer. labada dalba waxay leeyihiin waxa loo yaqaan 3 geesoodka nukliyeerka oo ah awoodda in hubka nukliyeerka laga rido 3 meelood, diyaaradaha dagaalka korkooda, gantaalada baalistikada ah ee qaaradaha isaga kala goosha, iyo sidoo kale gantaalada laga rido badda hoosteeda ee ay gujisyadu qaadaan. arrintan ayaa ka dhigaysa labada dal kuwa leh awood nukliyeer oo dhammaystiran, taasi oo sare u qaadaysa suurtagalnimada in colaadda military ee hadda taagan ay isku beddesho dagaal nukliyeer haddii aan xal degdeg ah laga gaarin.
haddaba guntii iyo gunaanadkii muuqaalkeennan aragtidaada daawade ma laga yaabaa in labadan dal ay nukliyar isku adeegsadaan si halkee saadaalinaysaa in dagaalkan uu ku biyo shubto nagula wadaag aragtidaada qaybta hoose ee komentiyada haddii uu ku qanciyey muuqaalkuna ha ilaawin inaad like inoo saartid lana wadaagtid asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran mahadsanidin